بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة يكون كني بوق ذاك يبوق كلا أو إنه كسر قادم دونه كلن كان بوق إنه ذاك إنه وحلا يرى هذا the challenge عقبضها وحقري مهاتير محمد. مهاتير محمد وحوها رئيس وزراء ماليزيا كن يستقال بقول كوي استيتنك إلى لودي كن يصدح دي مركلة هذا وحي هاي رئيس الوزراء ودنك ماليزيا لفتيسة. مهاتير وحوين وحلا وحسوستا أو تاريخ ليس كمدا سيدي وهرو مركا وين باحد له ولما متك دقالة له وقارسي ماليزيا بوغان وحو قري كون يستقال بقول إيو لحي استيتنكي مركا أفر سنة إيو وحير بوها بالرئيس الوزراء وحبوغان كاقور رميا ما وكفا قدية سيدا مقع وبحيد التشالنج عقبضيه مركا قبصدي رئيس الوزراء فرتاسنا يا ديراتك وتشوقي وحي عقبض ماليزيا هريا لمحي أهاين سيدو سو أركين لوغا بحيو waxyaalaha markaa inta badan buug uu faaqidaya waa caqabado iyo dhibaatooyin uu arkay in Malaysia ay ka hortaagan yihiin inay horumar sameeyaan kuwaas markaa waxa kamid ahaa oo uu ugu horeysiinaya dhaqan ay bulshada Malaygu ay leeyihiin oo ah macnaha inay yihiin dad madax adag ama jikaar badan ama muran badan oo tusaalaha wuxuu leeyahay dadka Malaysiyaanka ah mararka qaar xataa hadii xumaan la joojinayo oo la leeyahay waxa si wax weyn joojiya waxa suuragal ah in maanta lagu murmo qoladaas waaweynaha joojisay iyo daayartii joojinay wuxuu soo qaadanayaa mandooriye Malaysia laga isticmaali jiray oo la yiraahdo hala joojiyo inay ku murmeen oo la yiraahdo warmay dadka yaryar joojiyaan iyo idinka waaweyn horta joojiya macnaha iyada dhibaato ay tahay mar walba ay tahay in la dhameeyo oo meesha laga saaro in la isku qabtay yaa dhameynaya xagga la dhameynaya inay ahayd dhaqan bulsho oo wax kasta oo la keenay ama wax kasta macnaha madaxdaygaasi oo caqabad ku noqonay oo aad ugu faaqiday buugan arrimaha dhaqaalaha iyo aragtida uu ka aaminsan yahay caqabada Malaysia hortaagnayd wuxuu qaadanayaa tusaale ahaan uu faaqidaya saddexdii nidaam dhaqaale ee caanka ah nidaamkii communism-ka ee hanti wadaaga kii capitalism-ka hanti goostka iyo nidaamka socialism-ka dhamaantood wuxuu ku dhaleelaya mid walba inuu caqabada uu leeyahay dhaleelana uu leeyahay saddexdaasba se wuxuu leeyahay ka midaysan yihiin inay dhamaantood yihiin nidaamo materialist ah oo ah macnaha nidaamo aan ahayn nidaam macnaha ruuxaaniyad iyo ay ku jirto iyo dadnimo badan ay ku jirto ay tahay un dhaqaale mid walbana runtii wuxuu sheegay dhaliilaha uu leeyahay communism oo kale wuxuu leeyahay macnaha xoolihii in la wada yeesho oo qofku aanu hanti guud ba yeelan macnaheedu waxa weeye in cid waliba aanay waxba yeelan waa in state-ka iyo bulshada gebigeedu ay faqri ahaato because qof waliba wax male wax walba la wadaagay sidoo kale nidaamka capitalist-ka wuxuu leeyahay yaro kooban ba ku dul noolaanaysa bulshooyinkii kale maxaa la yiraahdaa fuqarada ah marka nidaamka dhaqaalaha wuxuu uga sheekeynaya uga hadlaya aragtidiisana uu ka dhibanaya inay tahay saddexdan nidaamba in aanay ahayn saddex nidaam inta la soo qaato Malaysia ka shaqeyn karo mid waliba caqabadaha ay leedahay soo bandhigaya inay muhiim tahay in ruuxaaniyad iyo nidaam aan ahayn material kaliya in dhaqaalaha laftiisa uu yeesho oo wuxuu leeyahay macnaha materialism-ka waxa kaliya laga helaa wax weey satisfaction in qofku dareemo in qofku qanaco laakiin marnaba lacagta doonta haysa ama adduunka doonta qofku haystay peace of mind inuu gudaha uu nabad ka dareemo marnaba ma sameeynayo mana yeelanayo taasina waxa xiriir la leedahay marka diinta iyo ummaddu waxay aaminsan tahay maadaama Malaysia dad muslima inta badan ay yihiin waxay doodiisu tahay in more nidaamkii dhaqaalaha loo shaqeynayo uu ekaado nidaamka zakada in la bixiyo ah oo tusaale ahaan uu leeyahay zakadu la mid ma aha nidaamka loo yaqaano socialism-ka ee ah in qof walba wuxuu haysto wax laga qaado laakiin in la qaato buu soo jeedinaya oo marka aragtidiisu ahayd nidaamka ah ka wax weyn haystana wax laga qaada ka miskiinkan waxba ka go'ayna waxba yaan la weydiinin laakiin in percentage aan la qaato la cid kasta oo laga qaadaya caqabad weyn inay tahay buu tilmaamaya aad buu runtii u dhexgalaya tusaalayaal badan uga bixinaya qaybaha kale aadka u xiisaha leh oo ka hadlaya waxa kamid ah caqabada waxbarashada iyo nidaamka Malaysia markuu ka sheekeynay wuxuu ka sheekeynaya Malaysia caqabada ugu weyn haystay inay ahayd nidaam kasta iyo aqoon kasta oo laga keenay galbeed inay u arkayeen inay tahay nidaam secular ama nidaam gaalaysiin ama Christianity macnaha dadku inay phobia ka qabeen oo marka la soo hadal qaado aqoon reer galbeed la oranayo hayaa no it's not working oo la qayda
qaylada la isku darayo. Marka wuxuu leeyahay aqoontuna guud ahaan cidii doonta ha samaysee cid gaari male, galbeedna male, kiristaanna male, muslimna male. aqoonta waxaa leh bini aadam oo dhan. tusaale ahaan wuxuu tusaale usoo qaadanaya aqoonta casriga ah ee teknolojiyadda reer galbeed aadka hadda ay dunida ugu hogaamiyaan. dadkii ugu waaweynaa ee contributionska ku lahaa ama salka u dhigay inay dad muslimiin ahaayeen. tusaale ahaan wuxuu soo qaadanaya teknolojiyadda iyo qalabka ay ku shaqeysa ee algoritmka loo yaqaano, nidaamka ay ku shaqeysa ee xisaabaadka algoritmka. wuxuu leeyahay nidaamka waxay sameeyeen muslima Maxamed al-Kharithi, laakiin reer galbeed ma odhan muslim baa ma doonayna intay qaateen bay horumariyeen, aanay ku isticmaaleen qaabkii ay u rabeen iyo horumarkii ay rabeen ay ku gaadheen. marka wuxuu leeyahay caqabad weyn bay ahayd in Malayga laga dhaadhiciyo dadka reer Malaysia. galbeed baan aqoon ka soo qaadanaynaa oo isticmaalaynaa, waayo markaba waxa ula carreynay yiraahdaan waa diintii baa lagu socdaa iyo aqoon gaaleed baa la keenay. taa lafteedana runtii si aad u xoogaal uga hadlaya dadka Malaysiyaanka markuu doonayay macnaha xataa aqoonta iyo curriculum cusub in loo sameeyo iyo nidaam waxbarasho oo wanaagsan inuu dhiso. wuxuu yiri dadka Malayga inta badan waxay ahaayeen dad aan jeclayn science-ka inay bartaan, oo aad u jecel artka iyo wixii farshaxanka iyo wixii la halmaala. sheegay marka iyada lafteedana caqabad weyn ku tahay ummadan oo rabin inay science barato hadana horumar rabta inay caqabad weyn ahayd oo caqabad weyn runtii ka qabsatay. wuxuu ka hadlayaa musuqmaasuqa oo runtii ah qaybta ugu xasaasisan ee muddo buuga marka uu kaga sheekeynayay isagoo ra'iisul wasaare ah oo xilkii fadhiya ummadda u talinaya inuu ka sheekeeyo arrin musuqmaasuq, waliba uu qiro inuu musuqmaasuq jiro isaguna uu madaxii dawladda u yahay. waxay ahayd arrin aad u xasaasi isaga laftiisu uu sheegay inay ahayd chapterkii ugu adkaa inuu qoro markuu buugan qoray. musuqmaasuqa wuxuu leeyahay laguma daweyn karo mushaaraadka la kordhiyo, musuqmaasuqa laguma daweyn karo dadka madaxda ah oo kulba la bedelo ama la eriyo. tusaalayaal balbalaaran runtii uu ka keenaya way wuxuu leeyahay qofku hadda tiraado mushaar baan kordhinaya musuqmaasuqa uu ka maarmaya ma waxa kaliya qofku wax musuqmaasuqa inay lacagta ku yartahay, laakiin qofka bini'aadamka markasta waa greedy, mar walba wuxuu doonayaa wax uu haysto wax ka weyn. sidaa awgeed haddii mushaharkiisii aad u liban laabto wuxuu doonayaa inta 3 laabkeed haddaad 3 laabtan 4 laabkeed. marka wuxuu leeyahay haddii qofka moralkiisii iyo wixiisii kale oo dhami aan ilaalinayn oo internal aan wax xijinaya aanu jirin, waxa kaliya musuqmaasuqa lagula dagaalami karo waa in la sameeyo xeer iyo punishment ka dhalanaya qofka musuqmaasuq lagu qabto waxa keenaya kaasoo kaliya lagula dagaalami karo buu leeyahay. laakiin in mas'uuliyiin la bedbedelo in qof la keenay in mushahar iyo dhaqaale qof loo kordhiyo ma keenaysa buu leeyahay. waanu qiraya runtii aad baan moodaa inuu arrintaa xoog u saarayo. meel walba uu jira musuqmaasuq buu leeyahay, laakiin maaha wax la tirtiri karo, laakiin in la yareeyo in lagu dadaalo wax weyn. waxyaalaha kale xiisaha loo ka hadlayo waxa kamid ah sida uu ka aaminsan yahay dimuqraadiyadda wax loo yaqaano xorriyadda hadalka. ereyo runtii inta badan ay fududahay in la sheego buu leeyahay, laakiin markay reality-ga noqoto iyo dhaqanada bulshooyinka kala duwan ay caqabado badan inay leeyihiin, mid walbana uu dhaliilaheeda iyo weaknesskeeda uu soo bandhigayo. runtii guud ahaan buugga waxaad moodaa markuu ka warramayo caqabadaha haysta iyo xaaladda Malaysia marka uu Mahathir ra'iisul wasaaraha uu ku cusba xaaladahaasi inay inaga iyo dalal kale oo badan runtii ay la dirsadeen. waxay u baahan tahayna ay tahay caqabada in marka ugu horeysa la qeexo xalku sidii yahayna cidda hogaamiyaha ama marka doonaysa ummadina hogaamisa ama talada haysa ay qeexdo kuna dhacdo qorshaheeda iyo aragtida qofkaas aaminsan yahay uu soo bandhigo. buug runtii aan moodo si guud inuu xaaladaheena uga warramayo wax badanna runtii ka bulsho ahaan labada bulshada moodo inay iska shabahno. guud ahaan buuggu waa buug kooban, xilliga la qorayna waa xilli aad u sii horeysay. buugaag kale oo badan baa jirta hadda ka dambeysay oo qoray Mahathir oo kan la yiraahdo The Doctor in the House iyo the Malay Dilemma isaga laftiisana uu qoray, kuwaasoo kaga sheekeynaya runtii caqabadahan marka uu ka warramayo oo faahfaahsan bal sidii uga gudbay iyo xaqiiqooyinka keentay. waa buug runtii iska kooban, qofka akhriyi karaana runtii uu xog fiican ka heli karo. inta aynu buuggan mid kale ku kulmi doono iyo kulanka kan xiga ee buug wadaag waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag waa adduun wadaag.